Maryan Cabdullaahi Maxamed waxay ku dhalatay magaalada Xudur ee gobolka Bakool bartamihii sagaashamaadkii waxa ay 3 sano ee la soo dhaafay la shaqeynaysay hay'adda WHO oo ay qaybta logistikada ugu qaabilsanayd gobolada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inkastoo aan la ogeyn sababta keentay dilkeeda, haddana markii uu dilkeedu dhacayay shalay waxa ay ku sugnayd bakhaar ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha kaas oo sida ay sheegeen waalidkeed iyo walaalaheed ay ka soo raraysay alaab ay doonaysay in ay ku aqal gasho. Xabiiba Cabdiraxmaan waa hooyada dhashay Maryan Cabdullaahi waxa iyada oo ku sugan magaalada Xudur ay iga warantay sida uu ku soo gaaray warka geerida gabadheeda Maryan, cidda soo gaarsiisay iyo cidda ay u maleynayso in ay dishay gabadheeda. Madaladileenu ku reegno badheegi gabadha soo deeyay. Gabadha maxay ku dhahday? Waldiliyana tani yeeba gabadha madaxa dhulka dhaw yeeba naftalayeen ku goynimaya walaalo walaayeen iyada in sheegday tan mardembilan ka horay una ka saanahan in sheegay. Intay iska raaceen gabadha la socotay intay ka wada baxeen. Beledka magaalada Bakaaro dhati oo leewal ku gadaday meelo boosteejida madaasay alaab soo baawar soo saareen. Waldiliitu ma ilaa mudili ma ooshan ilaahay la og. Toddobaadkii la soo dhaafay ayuu magaalada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ay qoyskeedu degan yihiin waxa ka dhacday xafladda meherka Maryan waxaana ay Muqdisho u timid inay ka adeegato inta aan la gaarin aqalgalkeeda oo sida qorshuhu ahaa la filayay inuu dhawaan ka dhaco magaalada Baydhabo. Hata oros gaadhi fadaasay alaab gurigeedati. Iyada gaadhi Baydhabo waxaan wadati Baydhabo. Baydhabo rabtay inay arooska ku gasho miya? Jaamac Cabdullaahi Maxamed oo ay walaalo yihiin Maryan ayaa sidoo kale iga warramay geerida walaashii Maryan gaar ahaan cidda ay tuhmayaan inay dishay gabadhooda iyo sidoo kale sida ay ahayd dhaqdhaqaaqii shaqo ee Maryan. Wallahi ilaahay eeguna meesheeni laakiin dadkii walaal dilay la isku taagahay. Gabadha shaqeynaysa iyo maahan adiga 3 sanadood oo gaartay wallahi. Qaybta walaal joogtay. Dhinaca Xudur may ka soo bilowday mise magaalada Baydhabo ay joogtay ka bilowday? Baydhabo joogtay ka bilowday. Marka iyada Baydhabo may deganeed. Adiga wali hadeer qof la qabay oo ma ahayna toddobaadkii hadda aan soo dhaafnaa wiil lagu meeray magan. Marka qof hadda la guursaday leeyahay intii hobta hore goorun bay. Marka meherka xaguu ka dhacay Baydhabo mise Xudur? Xudur. Amari Baydhabo dhaxayso. Jaamac ayaan mar kale weydiiyay bal in ay jirtay cabsi gaar ah oo ay qabtay muddadii ay Maryan waday shaqadan hay'adda WHO gaar ahaan xanuunka cudurka dabaysha. Kulay horta qof ilaahay aaminsan baa ahayd waxyaabahan waa la islaayay waxaan kuma barogaraamaysnayn dadka waxaas aaminsan kuma jirin meeshay doontay ka soo adeegan jirtay magar. Waa garta xamar ma tagi jirta iyada? Xamar kulay xafiiskeeda ugu weyn xamar ku yaalay mar walba xamar way aadi jirtay adii bishii hal jeer ama hal bil hadii maqnaato bishii dambe adii khaasay shaqadeedu ahayd. Waa garta marka wax cabsi ah oo ay ka qabtay shaqadan ay qabanayso ma jirin? Ma jirin. Intii ay shaqeynaysay dad ay qabteen ama ay xoogaa yara murmeen oo dhinaca shaqada ku saabsan ama idin soo gaarsiisay marna? Adiga maalin dhaweyd ba hooyo waxay ii sheegtay dad baa ii soo hanjabay igu tiriyay ahayd qofkina ma sheegin ayuu sheegin bay dhimatay magar. Qofka xaguu joogay dhahday? Wallahi meel uu joogayna ma aysan soo sheegin laakiin waa la ii soo hanjabaya oo qof ay u soo noqonayay didiba oo telefoonkeeda laga soo wacay. Qofka muxuu yiri dhahday? Hanjabaadda uu yiri maxay ahayd? Hanjabaadda waa dilaya iyo wax noocaas. Sababtu u dilayana ma sheegay? Sababtu u dilay kula ayada ayadana way dhimatay qofkii karana ma ayadana ma sheegin inuu ahaa lama dhihin. Jaamac ayaa sidoo kale iga warramay in aqalgalka Maryan uu ku xirnaa imaatinka ninka mehersaday toddobaadkii hore oo ku maqnaa dibadda kaas oo la filayay inuu maanta Muqdisho ka soo dego. Filan uu joogay markaas Filan. Hadda Nairobi joogaba. Markii hore waa soo jiray. Ayadana meesha waaday marka asnaaba la sugayay. Amar inuu yimaado oo ay soo raacaan Baydhabo ku aqalgalaan. Aqalgalka goorma qorshuhu ahaa inuu dhaco? Kulay horta arooska waa la cunay aqalgalka imaatinkiisa lagu xirnaa. Allah u naxariistay Maryan waxa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.